dhacdadan ayaa xalay waxa ay ka dhacday duleedka magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland waxaana kooxo hubeysan oo aan la garan haybtooda ay weerar ku qaadeen qoys reer mi ahaa oo ku noolaa duleedka magaalada Hargeysa. qoyskan ayaa waxaa la sheegay in saqdi dhexe ee xalayto ay soo weerareen kooxo ku hubeysan baasiin maqarro iyo weliba agabyo kale oo ay damcayeen inay ku weeraraan qoyska sida saraakiisha booliiska ee Somaliland ay warbaahinta ay u sheegeen. qoyska ayaa waxaa la sheegay in ay lahaayeen xoolo isla markaana kooxahani ay ku bilbileen shidaal ay wateen oo ka buuxay haamo sida dadka deegaanka iyo weliba saraakiishuba ay sheegeen. waxaa dhibaato ay ka soo gaartay sida wararku ay sheegayaan ilmo yar oo umul ku jiray iyo weliba dhowr neef oo ari ah oo shidaalka iyo dabka uu saameeyay. waxaana la sheegay in xoolaha intooda badan ay ku gubteen shidaalka iyo weliba dabka la qabadsiiyay. guriga ay deganaayeen qoyskan ayaa waxaa la sheegay in xilligaas ay ku jireen hase ahaatee ay lugahooda ay ku baxsadeen. taliyaha waa taliye ku-xigeenka booliiska ee Somaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dhacdadan ay ku soo wargeliyeen dadka deegaanka isla markaana ay goobta tageen. bismillaahir rahmaanir rahiim. ilaahay waa mahadle markii xigtana sidoo hore uu sheegay ciidanka booliiska waxa waajib ah in hadiyo jeer fal kasta oo dhaca in bulshada lala socodsiiyo oo ay bulshada ogaato. xalay oo bishu ahayd 6 bishii 10aad 2018 qoray saacadu ahayd 8 habeenimo waxa dhacday fal aad u farxun aan wali hore ila soo marin. falkaas oo ahaa reer degan koonfurta magaalada Hargeysa halka kontaroolka Faraweyne agtiisa ayaa la soo weeraray. reerkaasi waxa reer miyiga ahaa waxa lagu daadiyay shan jirikaan oo basool ah. rasaas waa lagu riday dabna waa la qabadsiiyay. falkaas waxa ku dhintay 12 neef oo ari ah 8 neefna waa dhaawac. gabadh umu lahayd oo reerka deganeed oo islaayad waxa ka carar iyadoo lagu ka jirtay. ciidanka booliisku markii warka uu soo gaaray waxay si degdeg ah ugu baxeen goobtii dambigaas ka dhacay. waxaana gacanta ku soo dhigeen hal eedeysane oo ay booliisku gacanta ku hayaan. baalista ka hor dhicmayno laakiin xogta la soo gaaray laamika waxay sheegaysaa in falkaasi uu la xiriiray muran dhul oo ay ku xiriireen. kiiskaas si buugaa loo baarayaa waxay ka soo baxaan dib baa ka soo sheegaynaa. hase yeeshee waxaan u sheegaynaa dadweynaha Somaliland waa nimanka falalka noocaasta ku kacaya inaanay dhaah laga qarsan doonin. kuwa falka sameeyay mid baa laga hayaa inta kale waa la raadinayaa. taliyaha booliiska ee Somaliland ma uusan sheegin haddii la soo qabtay dadkii dhibaatadaas geystay. hase ahaatee waxaa la sheegay in arrintan ay la xiriirtay muran xagga dhulka ah. waxaana wararku ay sheegayaan in qoyskan lagu weeraray sunta basiinka iyo dabka. haatan uu hal qof waxyeello ay ka soo gaartay. dhacdadan waxa ay noqonaysaa dhacdooyin ugub ah marka la eego waxa loo adeegsaday weerarkan.